أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى. You go and kill your child for somebody else's crime? Is that what you do because you love this criminal so much? All these sinners? Next man. Next man. kusoo dhawaada barnaamijkeena Halyeyda Islaamka. barnaamijkeena Halyeyda Islaamka toddobaadka hore waxaynu kusoo qaadanay qaybtii koowaad ee taariikh nololeedka Sheekh Axmed Xuseen Diidaad Allah u naxariistay. toddobaadkan insha Allah waxaynu kusoo qaadan doonaa qaybtii labaad ee taariikhdaas. kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkooda idinkala baxo. Axmed Diidaad kuma ekaana qura inuu jeediyo muxaadarooyinka ka hadlaya isbarbardhigga diimaha Kiristaanka Islaamka, balse wuxuu gudagalay in isaga iyo shaqaalaha machadkiisaasi ay qoraan maqaalo kooban ay u baxsheen qur-aanka oo hadlaya, kuwaas ay ku daabici jireen jaraa'idada ugu waaweyn ee waddanka Koonfur Afrika. sidoo kale wuxuu xoogga saaray inay daabacaan maqaalo kooban kuwaas oo lagu cadaynayo fariimaha qur-aanka iyo kor u qaadidda wacyiga ummadda Koonfur Afrika, kuwaas oo ku qoran afka dadka madow ee waddankaas ee loo yaqaan Zulu. wuxuu sidaas ku jira Sheekh Axmed Diidaad waxaa markii u horreysay loogu yeedhay inuu muxaadaro ka jeediyo magaalada Cape Town, muxaadaradaas oo ay soo xaadireen dad ka badan 40,000 oo qof. Axmed Diidaad Allah u naxariista waxa uu qoray oo uu inooga tegay kutub aad u fara badan, kuwaas oo ay ka mid yihiin Injiilku Mahadalkii Alleba, muxuu Injiilku ka yidhi Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, habka Islaamku u xalliyey mushkiladaha cunsuriyadda, iyo Muslim tukanaya salaad iyo doorashada, iyo qaar kaloo badan. kutubtan iyo qaar kaloo badan ayaa la daabacay waqtigaas in ka badan 100,000 ilaa 300,000 oo jeer, kuwaas oo si bilaash ah dadka loogu qaybshay. wuxuuna sidoo kale Sheekh Axmed Diidaad iyo hay'adiisu qaybsheen in ka badan 85,000 oo kitaab oo isugu jira kutubta qur-aanka iyo tafsiirka. wuxuuna sidoo kale waqtigaas u diyaarshay 100,000 oo isugu jira kutubta qur-aanka iyo tafsiirka, kuwaas loo qaybinayay wadamada Mareykanka, Hindiya, Pakistan iyo weliba Sri Lanka. sanadku markuu ahaa 1976 Sheekh Axmed Diidaad wuxuu markii u horreysay u baxay si caalami ah, wuxuuna safar ugu baxay waddanka Sacuudi Carabiya, isagoo safarkiisa uu ku wehelinayay saaxiibkii Ibraahim Jadwad. Ibraahim markuu gaaray waddanka Sacuudi Carabiya wuxuu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay soo saxaafadda Sacuudi Carabiya sabab muuqbaahiyeyaasha ama tiifiyada waddankaasi ay waraysi uga qaadi lahayn Sheekh Axmed Diidaad. ugu dambeyntii way ku qanceen oo ka qaadeen waraysigaas oo noqday albaabkii ugu horreeyay ee uu ka galay caalamka intiisa kale, sidoo kalena noqotay albaab u furmay albaabkaas oo u rumaynaya inuu daabaco kutubtii iyo maqaaladii uu rabay. dhinaca kale Axmed Diidaad wuxuu kasii waday halgankii muxaadaraadka iyo qoraalka, wuxuuna qoray buug la yidhaahdo The Choice oo macnihiisu yahay doorashada. wuxuuna Sheekh Axmed Diidaad noqday aabaha fikirka cusub ee lagula dagaalamaya fikirka baadariyada Kiristaanka ah, fikirkaas oo xambaareen ururo fara badan oo ka mid ah dhalinta muslimiinta ahi. wuxuuna si cad u wajahay baadariyada Kiristaanka isagoo marar badan ugu baaqay inay dood wada galaan. taariikhdu markay ahayd November 1986 wuxuu Sheekh Axmed Diidaad Allah u naxariistay aqbalay inuu dood la galo mid ka mid ah baadariyada ugu waaweyn Mareykanka oo la odhan jiray Jimmy Swaggart, doodaas oo ciwaankeeda la odhan jiray Injiilku Mahadalkii Rabbiba. Axmed Diidaad wuxuu doodaas ku jiray baadariga weyn, taasi oo soo jiidatay indhaha saxaafadda caalamka. isla sanadkaas 1986 wuxuu Sheekh Axmed Diidaad ku guuleystay jaa'isadda caalamiga ah ee Boqor Faysal, looguna talagalay dadka diinta Islaamka u shaqeeya. sanadadii xigay Sheekh Axmed Diidaad wuxuu dooda la galay baadariyada Kiristaanka sida Anis Shorosh, Floyd Clark, Stanley Joubert, Bishop Wakefield iyo qaar kale. Axmed Diidaad wuxuu safaro dacwadeed ugu baxay wadamada kala duwan sida Australia, Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamada Afrika sida Kenya. But sir, I'm not reading from the book of Isaiah, I'm reading from the book of Kings. sanadkii 1996 ayaa xanuunka faaliga ama qalalka ku dhacay Sheekh Axmed Diidaad, kaasi oo keensaday in loo qaado waddanka Sacuudi Carabiya, halkaas oo dhakhaatiirtu kula tacaaleen xanuunkiisa. 10 bil kadib waxaa dib loogu qaaday waddanka Koonfur Afrika, halkaas oo kula noolaa xanuunka oo ka dhigay mid aan waxna liqi karin isla markaana aan hadli karin muddo dhan 9 sannadood. ugu dambeyntii uu xanuunka la tacaalay horaantii bishii August sanadkii 2005 ayuu Sheekh Axmed Diidaad Allah u naxariistay u geeriyooday xanuunkaas, waxaana lagu aasay magaalada Durban ee waddanka Koonfur Afrika. aaskiisa waxaa ka soo qayb galay 10 qof oo ka kala yimid dalal fara badan oo caalamka ah. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم